waxa warkani soo diray wariyaheena nooga soo warama Shabeellada Hoose Cabdifataax Cali Cumar. munaasabadan oo ahayd mid xilalka ay ku kala wareegayeen maamulkii hore ee degmada Afgoye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo maamulka cusub ayaa waxay ka dhacday degmada Afgoye ee gobolka Shabeellada Hoose. munaasabadan oo goobjoog ahayeen lamaha ammaanka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo maamulka sare ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ugu horeyn waxa goobta ka hadlay xogayihii hore ee degmada Afgoye Cumar Muuse Faray iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Afgoye Cabdinaasir Caalin. oo faraxsanahay in aan hadii la waa gurooyay bedel dhaco dawladnimo waa qoro isku dhib qof aan la joogto maalinka kale qof kala joogayso qof ku daahaysa ma jirto hadii la waa gurooyay waxaan aad ugu faraxsanahay bedelaadana la bedelay oo nagu la bedelay igartaydi sidii ma taqaana saaxiibayalkay igartaydina lagu bedelan aadan ugu faraxsanahay 3 sano aan xafiiska joogay waxaan dalbanaya accountability حساب ده فرن يعني شورت ضدك إن لقى قاعدوا تبلغوا عليه قدوميها عصب يحقيها عصب ما دام يكون عصبيين دقمة أفقوي وحن كعد سنة يعني إن ضدك يوعدالات سمايا sidoo kale waxa goobta ka hadlay maamulka cusub gudoomiyaha degmada Afgoye mudane Ibrahim iyo sidoo kale Maxamed Ali Jamiil oo xogayaha cusub ee degmada Afgoye gobolka Shabeellada Hoose. odayaasha deegaanka waxaan sheegayaa inaan ila shaqeyn doono adalkiina waa dhigeysanay aqwadaha badan hortaagan degmadan inaan xaqib tiro doono iyo gudoomiyaha cusub si wanaagsan isla shaqeyn doono insha Allah waxaan aad uga mahad celinayaa gudoomiyahaygi hore oo xilka igu wareejiyay si ugu sharafta badan iguna wareejiyay oo shahaado sharafna ka bixiyay halkaas oo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose mudane Ibrahim Najax oo goobta ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyay shacabka degmada oo sheegay in ay la shaqeeyaan maamulkan cusub kaalinta shacabkana ay ka dhex muuqato mid gobolka Shabeellada Hoose 3 wiil oo staafkayga ku dhintay waa isla bishii hadda gudaheeda saaxiibkayga oo dadkii ugu dhawaa waad xasuusataan bishan gudaheeda ayaa halkan lagu dilay waad aragteen oo ku geeriyay waxaas oo dhan macnay ku fadhiyaan dadka Soomaaliyeed ayaga la rabaa inay maskaxdooda dib u shaqeyso 30 sano waxaad soo burburinaysay cid 3 sano ku dhisaysa ma jiro maxaa laga rabaa marka aniga dardaarinkaygu yahay eeda maamulkii hore maamulka hadda imaanay iyo intaas way ka weynta annaga waxaan ugu dhacay musiibo rabbaani ah ku habsatay dalkeena waxaa la rabaa marka inuu fikirkeena ka sareeyo waxaan ka hadlay Cabdifataax Cali Cumar Tawakkal wararka telefishinka caalamiga Tayo TV 24 gobolka Shabeellada Hoose.